وحمالمهم بسيادة لو قدر سوقي دورشدي شعب ويناك لدونا كل قنديقنا ذا قبل ذا قلبات كسمال لانو عديين مرشحينتي كل الدونا كشر احنا صدح حزب قرن كواسو متكستايبين نتيجوين هرداع اي سوقيان قدوميها قبل كاود محمد احمد عالن تيمبر oo halkan goor warbaahinta kula hadlaya waxa uu sheegay natiijooyinka hordhac ka soo gaaraya degmooyinka Seylac iyo Lughaya degmada Lughaya idin horeysiyo sida uu soo dhajiyay komishanka doorashooyinka ee degmada Lughaya xusbiga kulmiye wuxuu helay 5 xusbiga wadana wuxuu ka helay 2 xusbiga cudna wuxuu ka helay 2 deegaanka degmada Lughaya waa 9 kaas soo kordhin degmada Seylac sida uu soo dhajiyay gudoomiyihii degmada ee komishanka qaranku waxa loo kala helay kulmiye oo 4 wadani oo 4 iyo 3 ucida iyana golaheeda deegaanku waa 12 saasana loo kala helay alxamdulillah rabbil caalamiin baynu leenahay intii heshay waanu hambalyeynayna inta kale istishaabisayna waanu hambalyeynayna guulba u soo hoytay baan leeyahay degmooyinkeena gobolka Awdal iyo qaranka Soomaaliland intaba insha Allah degmada Lughaya saacada dabadeed in yar dabadeed waa naga heleysaan degmada Booramo way tiro badnayd iyana waxa laga yaabaa in la caawiyo inoo soo gabagabowdo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيك سبعة النتيجين كهرع يا سيسوتر يدقنا كل الدول الدلكا وعمران حسين آدن وررك تلفزيون كعلمي كيريال تيفي بورما.